isbarbardhig lagu sameeyey awoodaha militari ee waddamada Itoobiya iyo Masar. xiisada ka taagan webiga Nile ayaa u muuqata mid ka sii daraysa maalmihii u dambeeyay kadib markii Itoobiya ay bilowday buuxinta biyo-xireenkeeda, taasoo walwal ba'an ku haysa dowladda Masar oo ka cabsi qabta inuu hoos u dhac ku yimaado biyaha Masar ay ka hesho webiga Nile. wargeyska Forbes oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo wargeyska The Global Firepower oo ka faallooda awoodaha militari ayaa soo bandhigay awoodda labadan waddan ee ishaya muddooyinkii u dambeeyay waa Masar iyo Itoobiya iyo siday u kala awood badan yihiin. marka ay timaado awoodaha militari ee dalalka Masar iyo Itoobiya, militariga Masar waxaa lagu qiimeeyay inuu ka mid yahay 10ka dal ee ugu awoodda badan caalamka dhanka militariga. shabakadda The Global Firepower oo inta badan wax ka qorta awoodaha militari ee dalalka caalamka ayaa warbixin ay soo saartay sanadkan 2020 ku sheegtay in militariga Masar uu yahay kan 9aad ee ugu awoodda badan dunida, halka militariga Itoobiya uu yahay kan 6aad ee ugu awoodda badan dunida. awoodda militariga ee dalka Masar haddii aan ku horeyno, wargeyska The Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka bariga dhexe marka laga soo tago Turkiga oo ah dalka ugu awoodda badan gobolkaas. shacabka dalka Masar oo gaaraya ilaa 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa uu wargeyska Global Firepower ku qiyaasay inay yihiin 43 milyan oo qof, halka kuwa howlgalka hore ka geli kara oo diyaarsan ay yihiin 36 milyan oo qof. ciidanka militariga ee dhulka u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa 920,000 oo askari, halka ciidamada hadda ka howlgala ay tiradoodu gaarayso 440,000 oo askari. dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd ah oo gaaraya 480,000, kuwaas oo haddii loo baahdo dagaal geli kara saacad walba. wargeyska The Global Firepower waxa uu soo wariyey in Masar ay haysato 4,295 oo ah taangiyada dagaalka ee casriga ah, 11,700 oo ah baabuurta gaashaaman, 2,189 oo ah gantaalada goobta laga rido, iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya oo noocyo kala duwan ah. dhanka ciidamada badda ee Masar waxay shabakadda Global Firepower ku sheegtay inay agabka ay haystaan uu guud ahaan gaarayo 316. ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo casri ah oo ah kuwa qaada diyaaradaha dagaalka, kuwaas oo ay adag tahay in laga helo dal kale oo Afrikaan oo haysta. waxa ay Qaahira haysataa oo kale 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda muquurta, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha, iyo 31 maraakiib oo ah nooca badda ku aasan miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso. militariga Masar ayaa sanadkiiba waxa lagu kharash gareeyaa lacag dhan 3 bilyan oo dollar, waxaana qayb ahaan lacagtaas bixiya dowladda Mareykanka. ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka kuwa ugu casrisan, waxayna isla sanadkan la soo wareegayaan 36 diyaaradood oo nooca dagaalka ah kuwa ugu casrisan ee Ruushka hadda uu sameeyo heshiis ay sanadkan horaantiisii gaareen. 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada, 387 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopterska loo yaqaano, iyo 81 oo ah helikobtarada wax weerara kuwa ugu fiican. Masar ayaa awood u leh in diyaaradaheedu duqeeyaan biyo-xireenka lagu muransan yahay ee Itoobiya, iyadoo isticmaalaysa hawada labada Suudaan midkood, dagaalkaas oo lagu qiyaasay inuu qaadan karo ilaa 3 saacadood. markana bal aynu eegno
awoodda militari ee dalka Ethiopia. Ethiopia oo ka mid ah dalalka geeska Afrika ugu awoodda badan sida la sheego, ayaa tirada dadka ku nool waddankaas waxa ay gaarayaan 108 milyan oo ruux. dadka awoodi kara inay dagaalamaan ayaa lagu qiyaasay 41 milyan oo qof, halka kuwa dagaal geli kara oo haatan u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ay gaarayaan inta u dhaxaysa 162,000, halka kuwa dagaalka geli kara ee haatan u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia ee dalkaas ay gaarayaan inta u dhaxaysa 162,000. militariga dalka Ethiopia ayaa Global Firepower uu ka soo wariyay inuu haysto 4,000 oo taangiyada dagaalka ah, 114 oo ah baabuurta gaashaameen ee dagaalka, 67 gantaalada dhulka lagu rakibo ee artilleriga loo yaqaano iyo 183 oo ah madaafiicda wax duqeeya. ciidamada cirka Ethiopia waxa dhawaan lagu xoojiyay hanaanka gantaalada difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska. diyaaradaha dagaalka Ethiopia ayaa lagu qiyaasay 24 diyaaradood oo ah kuwa miiga loo yaqaano, 9 diyaaradood oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaaradood oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca ee helicopteriska, iyo 8 noocyadaas ah oo ah kuwa wax duqeeya. laakiinse wargeyska Global Firepower ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha Ethiopia badankood ay yihiin kuwa qadiimi ah oo mar hore laga gudbay oo aanay badanaa u suuragal ahayn in ay dagaal weyn ka qayb qaataan. Ethiopia ma lahan wax ciidan badda ah maadaama aysan lahayn bad. qaar ka mid ah warbaahinta Ethiopia ayaa sanadkii hore ku soo waramay in dawladda Faransiisku ay Ethiopia ka caawinayso dib u dhiska ciidanka badda oo la kala diray sanadkii 1991 kadib markii Eritrea ay ka go'day Ethiopia, halkaasoo saldhig u ahayd ciidanka badda ee Ethiopia. isbarbardhiggan wargeysku uu soo bandhigay ayaa muujinaya in labada dal ay aad ugu kala sarreeyeen dhinaca awoodda militari dhinac walba.